aqoonsigii la sugayay la lahaa muddo 4 saacadood lagu dhawaaqaya in maanta yuhuudna ka daba tuurto waxaad oo la yaabo waxaad lagu xun yahay kulay run ahaantii anuma soo dhaweynayo adaan nahay dad ummadda muslimka ah ee Soomaalida ah annagoo og dadkaasi waxay geysteen waxay ummad xasuuqeen waxay dad muslimna cagta hoostooda galiyeen laakiin talaabid waxay noo haysaa iska yarba dadkii muslimiinta bay dhamaysay talaabid waxbay noo ma hayso badeena ina doonaysaa talaabidta laftigeegu oo Itoobiya u rabtaa waa ka soo horjeednaa anagu hadaan ay gobolka awdo islaamkii waxa la doonayaa inuu islaamnimo ku dhigto kuna noolaado intay naftu arwaaxda ku jirto laakiin yuhuud iyaa aqoonsanaysa waxa raali ka mihi waxa aqbalsanahayna ma aha dadka islaamka waxaan u sheegayaa inaana yuhuuda inay noo aqoonsanaan marka Israa'iil aqoonsigu ma baahnin iyadaana aqoonsiin baadanaha wadamada islaamka raalina kama nihin marka waxa la wado saabado loo soconaysa runtii waxa aad loola yaabo aqoonsigii la sugayay la lahaa muddo 4 saacadood lagu dhawaaqaya in maanta yuhuudna ka daba tuurto waxaad loola yaabo waxaad lagu xun yahay kulay run ahaantii anuma soo dhaweynayo adaan nahay dad ummadda muslimka ah ee Soomaalida ah annagoo og dadkaasi waxay geysteen waxay ummad xasuuqeen waxay dad muslimna cagta hoostooda galiyeen kuma faraxsanin baan leenahay kolkaan su'aashaas waxay la tahay Israa'iil maanta waxaan ay sheegtay iyo systemkan ay wax u wado wax sax iyo nidaam ay waafaqsan tahay horta ma jirto su'aasheeda marka waxaan ku micnayn karaa waa wax horta aqoonsi marka la leeyahay afti dadweynaha la qaada aragti shacab la qaada aragtiyo badan buu ku yimaadaa marka Israa'iil halka imika waxay ka cadaysay inay soo degi doonto gobolka Awdal aragtideedana marka hore ay ahayd nidaamkan la isku leynayana iyadunba ka dambeysay waxyaabahan qaarkood la wado markaana aragtideedaas waxay tahay waa wax aan sax ahayn iyada lafteedii baba aqoonsi Israa'iil u baahanba oo wadanada kalena ay aqoonsaneenba waa sida marka qaranada midoobay ka dhaadhicin horta iyada lafteedu in Netanyahu la soo qabtaba mar hore warqad loo gooyay anigu horta qofan ahay aqoonsiga Soomaaliland la sheegayo yuhuudda raali kamay mana raacsani sababta oo ah islaamnimadii waan ka dibadda ka noqonaynaa waxa islaamnimadan raali kamay laakiin talaabid waxay noo haysaa iska yarba dadkii muslimiinta bay dhamaysay talaabid waxbay noo ma hayso badeena ina doonaysaa talaabidta laftigeegu oo Itoobiya u rabtaa waa ka soo horjeednaa anagu hadaan ay gobolka awdo ictiraaf hadii la doono farba farta ku xigta lagu qabaa walaalaheena Soomaaliya ayaa inoo haya ictiraafka horta waxa muhiim ah in la fahmo qadiyadaha socda iyo dabaylaha socdaata marka Israa'iil aqoonsigu ma baahnin iyadaana aqoonsiin baadanaha wadamada islaamka raalina kama nihin marka waxa la wado saabado loo soconaysa waxaan ka waqti niman yuhuud ma niman ahla ma aha niman qol ma aha marka waqti niman yuhuud يحوتي وصل قاس يوصلان مكاني مكان واحد دون ساي دبي مثلا يحوتي أوراً بعدين سواء لو ده قصة دنيا ما يفهم مكان سواء أنت كذا قصوي سواء تقول أقول مسكونه مسكونه مكان وقت مشكلة يعمل على الجريان مكان حوالي ما قوم مفعنا ولا هاي قاعد أنت سوى دنجلين دينا أدو في كلام مفعنا له يا مكان وقت قصة دي مسوي كذي وما تسوي أنت لا تعمل حبط هذي وما تقصر أنت كسر لا أنا كان كلا وريا ما فهمت ما قد ما كان اسمه قانص ما كان متعتاب تراك يلا ندعاته دوندي